howlgalka Awesome ee Soomaaliya ka hana qaaday bilowgii sanadkan ayaa waqtigan la kulmaya dib u dhac ballaaran taas oo sababtay in wax badan laga bedelo qorshihii hore isla markaana la dejiyo mid cusub. Howlgalka taageerada xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya ee Awesome ayaa December sanadkii tagay la qorsheeyay inuu ka koobnaado 11,900 oo shaqaale ah oo isugu jira military, boolis iyo shaqaale kale oo rayid ah oo ka socda howlgalka Midowga Afrika. Walaaca iminka soo yeeraya ayaa iftiiminaya dib u dhac ku qotama ciidamadii Masar ee la filayay in la keeno Soomaaliya kuwaas oo kaalin weyn uga jiray howlgalkan waxaana arintani loo sababeynayaa dhowr qodob oo laga xusi karo caqabad dhaqaale iyo mid la xiriirta diidmo ee Itoobiya ka muujinayso in Soomaaliya la geeyo ciidamo Masaari ah kuwaas oo ay ka cabsi qabto inay baacsadaan kuwa Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalkan sida ay sheegayaan Midowga Afrika. Arrintan ayaa ka dhalatay caqabado dhaqaale iyo mid farsamo oo soo wajahday howlgalka Awesome ee Soomaaliya balse falaqeeyayaasha ayaa arrimo kale u sababeynaya dib u dhaca. Ciidamada Masar ee lagu balamay inay howlgalkan ka qayb qaataan ayaa gaarayay ilaa 1,091 askari waxaase jirtay tiro intaasi ku laba jibaaran oo ay Soomaaliya iyo Masar ku heshiiyeen inay Soomaaliya soo gaaraan kadib markii ay Soomaaliya yimaadaan ciidamada Awesome qaybta ka ah. Walaaca iyo cabashada ee Itoobiya marar kala duwan ka muujinaysay imaanshaha ciidamada Masaarida ayaa loo sababeynayaa dib u dhacan waxaana arrintani ay noqotay mid ay si weyn uga caroodeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar oo heshiisyo kala duwan ku kala saxiixday Qaahira kadib booqashadii kal hore ee madaxweyne Xasan Sheekh. Masar oo aad u daneynaysa inay kaalin ballaaran ka ciyaarto howlgalkan ayaa cagajiidka ku eedeynaysa Midowga Afrika waxayna tilmaantay in laga gaabinayo qorshihii ciidamadeeda loogu daadgureyn lahaa si loo geeyo Soomaaliya taas oo xagaldac ku noqonaysa heshiisyadii hore. Ciidamada Masar ee howlgalkan qaybta ka ah iyo tirada kale ay ku heshiiyeen labada dal oo gaaraysa wax ka badan 3,000 ayaa walwal ku abuurtay Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa. Ciidamada Masaarida ee lagu wada inay Soomaaliya yimaadaan ayaa kal hore muujiyay cududooda military, agabkooda difaaca iyagoo ballan qaaday in taageero dhan walba ah ay siin doonaan ciidamada Soomaaliya. Waxaa walwal fara badan abuuraya meelaha ciidamada Masar la geynayo sida maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Jubbaland iyo Galmudug oo dhammaantood xuduud la leh Itoobiya. Arrintan ayay khubaradu ku sifeeyeen sababta ay Itoobiya ugu qanci laadahay imaanshaha ciidamada Masaarida iyadoo dhowr jeer oo hore ka digtay kuna tilmaantay arrin khatar u horseedi karta ammaanka geeska Afrika xilli la ogsoon yahay in labada dal ay dhex taalo xurguf la xiriirta webiga Nile oo murankiisu sanado badan soo jiitamayay. Iminka howlgalka ayaa ugu dambeyn go'aamiyay in ciidamada Burundi ay sii joogaan Soomaaliya waana tilaabo ka hor imaanaysa sida heshiisku ahaa maadaama hore loo qorsheeyay in ciidamada Burundi ay Soomaaliya ka baxaan ugu dambeyn 30 Juun ee sanadkan 2025 waxaase xilligan loogu daray 6 bilood oo dheeraad ah. Go'aanka sii joogitaanka 6 bilood ee ciidamada Burundi ee Soomaaliya ayaa lagu gaaray fadhigii 1287 ee Golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika waxaana kulanka gudoominayay wasiirka arrimaha dibadda Uganda Jeje Odonga kaas oo sheegay in sii joogitaanka ciidamada Burundi ay muhiim u yihiin howlgalkan iyo xasiloonida mustaqbalka fog ee Soomaaliya. Cagajiidka sababay dib u dhaca ku yimid keenista ciidamada Masaarida ee bedeli lahaa kuwa Burundi ayaa hubanti la'aan hor leh ku keenaya howlgalkan waxaana Masar ay iminka shaki weyn ka muujinaysaa suurtagalnimada ka qayb noqoshada howlgalkan. Walaaca Masar kadib howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa cod dheer ku sheegay inuu xilligan wajahayo xaalado ka dhashay dhaqaale darro iyo gaabis ku yimid hanaanka daadgureynta Midowga Afrika iyo qaramada midoobay taas oo sida ay xuseen fursad siisay in Soomaaliya lagu sii hayo ciidamadii bixi lahaa ee Burundi iyo booliiska dalalka Ghana iyo Sierra Leone oo iyagana la bedeli lahaa. Sida uu howlgalku sheegay marka la eego qorshaha ciidan ee Midowga Afrika waxaa ciidamada Masar la keeni karaa Soomaaliya oo kaliya marka ay dalka ka baxaan tiro u dhiganta ciidamadaas oo Burundi ah. Golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika waxa uu ka dalbaday madaxda Midowga Afrika inay la xiriiraan qaramada midoobay, Midowga Yurub, Ingiriiska iyo saaxiibada kale si loo qabto shir dhaqaale loogu ururinayo howlgalka Awesome oo hadda u baahan sanadkii dhaqaale gaaraya 166.5 milyan oo dollar. Qorshaha la dejiyay ciidamada ka mid noqonaya Awesome ee sida rasmiga ah waxa ay ka koobnaayeen 4,500 oo askari oo ka socda Uganda, 2,500 oo Itoobiyaan ah, 1,520 askari oo ka socda Djibouti, 1,410 Kenyaan ah kuwa oo iminka dib u dhacay. Si kastaba Midowga Afrika ayaa walaac xoog leh ka muujiyay sida ay dowladda Soomaaliya ciidankeeda ugu diyaarsan yihiin inay si buuxda ula wareegaan amniga dalkooda. walow ay sheegeen in la tababaray ciidamo ku dhow 20,000 oo Soomaali ah haddana Midowga Afrika ayaa shaki ballaaran geliyay in ciidankaasi ay hanan karaan amniga dalkooda isla markaana ay ka adkaan karaan ururada argagixisada taas oo sida ay tibaaxeen laga maarmaan ka dhigaysa in howlgalkan uu dhaqaale helo si uu u sii socdo.